baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya oo u fadhiistay doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ayaa waxaa gudoomiye u tartamay xildhibaan Cabduqaadir Shariif Sheekuna Maye iyo Dr. Ali Xasan Cismaan iyadoo dheeri lagu kala baxayay ayaa waxaa codeysay 144 xildhibaan. Dr. Ali Xasan Cismaan ayaa helay 33 cod. xildhibaan Cabduqaadir Shariif Sheekuna Maye ayaa isna helay 109 cod. 2 cod ayaa xumaatay. sidaas ayaa waxaa gudoominimada ku guuleystay Cabduqaadir Shariif Sheekuna Maye sida gudoomiyaha ku-meelgaarka baarlamaanka uu natiijada ugu dhawaaqayo. waxaa codeysay 144 xildhibaan. waxay u kala heleen xildhibaan Ali Xasan Cismaan wuxuu helay 33 cod ayuu helay. maaragtay waan xildhibaan Cabduqaadir Shariif Sheekuna Maye wuxuu helay 109 cod. isugeynta sida daraad gudoomiyaha baarlamaanka rasmiga ee maamul-goboleedka koonfur galbeed Cabduqaadir أنا فرح سنة سنة ديمقراطية يقول علي أيضا محمد وشرف ولكن تقول ليس عبدالله شيخنا وهو ملينا يا أقولي كومبليتوليشن عبدالله دي شيء ممكن لها بقية أسمع عزية أنا إما قرر إن أنا أرجع بفريسته ولكن والله شقينيا إله باقيتي إلى خير تعالى marka waxaan uga mahadcelinayaa walaalka Cali Xasan sida sharafta geesinimada leh ee uu u ansixiyay doorashada halka ka dhacday kulliga markaasoo ahayn maanta waxaan cadeynayaa wax nin guuleystay in uu guuleystay labada ma jirto labadeedaba مسؤولية البرلمان كان مدارن سيريسا ودودينا بإذن الله الكريم مركوح تدار كلام كتيرنا يمارع إن شاء الله. intaa kadib ayaa waxaa la gudagalay doorashada gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo ay u tartamayeen xildhibaan Maxamed Nuur Maxamed iyo xildhibaan Ibrahim Aadan Buule. waxa ay tartamayaashu ay ku kala baxayeen hal cod dheeri waxaana codeysay 143 mudane. Ibrahim Aadan Buule waxa uu helay 43 cod halka Maxamed Nuur Maxamed uu helay 99 cod. hal cod ayaa xumaaday. sidaasna gudoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa noqday Maxamed Nuur Maxamed sida gudoomiyaha uu ku dhawaaqayo. dhammaan waxaa wanaagsantihiin waxaan hadda waaweynaa natiijada ka soo baxday doorashada. waxaa tiradii koowaad tahay oo soo xaadirtay ee woodka gashay 143. waxaa maaragtay Ibrahim Xasan Buule wuxuu helay 43 cod. Maxamed Nuur Maxamed wuxuu helay 99 cod. hal cod gudoomiye ku-xigeenka labaad ayaa kaliya u tartamayay Aweys Xuseen Macalin. cod gacantaaga ayaa loo qaaday waxaa ogolaatay 140 mudane. 3 ayaa diiday. sidaasna ayaa Aweys Xuseen Macalin ku helay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya. shirkudoonka ayaa natiijada ku dhawaaqay. intii doorashadu ay socotay waxaa halkaasi goobjoog ka ahaa wakiilo ka kala socday urur goboleedka IGAD, qaramada midoobay, AMISOM iyo marti sharaf kale. doorashada kadib waxaa la dhaariyay gudoonka cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed waxaana dhaarta ka soo qayb galay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo dhaarta kadib halkaasi ka hadlay ayaa u hambalyeeyay mas'uuliyiintii ku soo baxday doorashada iyo raggii laga guuleystay intaba. marka ciidan ma sidii madaxweynaha iskuula guddiga doorashada oo iniga dowladda iyo ku-xigeenaysa doorada qabanqaabada shirkaha iyo dadka nabadda sugaya ciidanka nabadda sugaya runtii arab ahayna
سفيلة يشغل يوم قبصة وأنا كمان سنين ما هذا إلهي يذكر لك أن هبل أنا قدوميها برلمانك كونفور قلبي يبغيني دي سلامة لكو إلا ملا إيدي أنا هبل أنا ولكن أنا هبل أنا ولا نجوا على ترتمان ودين الترتمان كل ميلان بعض فضي أتكمل بعض أقرادي يوم إيدي أنا كمان سنين لنقولي سنين لنقولي سنين بجرب ونقول سنقولي سنين أنت كونفور قلبي شعب شيء يبرلمان شيء يدمانتيو كل نقولي سنين أنا نمي دورنا قدوم نسقطنا ونودورنا قولنا ودير إلهي نوع كمان نجانا وين إلهي كتبنا إلى كل هذا تدركن يكتب فلين ومدن رباطه يمدد بالحقيقة بحفظه baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya oo dhawaan la yegdeelay ayaa waxaa horyaala howlo aad u tiro badan Abshir Maxamed Nuur Mandela Royal TV Baydhabo